daarood ehel ma nihin waxay suman nihin isma soo gallo xabad casbaa naga dhaxaysa reer laas caanoode sii tago ha soo noqonina waxa naga sii qaadaan mooy waxba nagu soo celin badana waxa weeye deynaynu ka faa'iideysano oo aynu kirayno waa waajib dani inaynu halkan ku xusno waa anigu raali ka bixin maanta waxay ila mid tahay maalintii Soomaaliland la qabsaday Xalimo Xuseen Yuusuf oo kamid ah siyaasiyiinta haweenka ee Soomaaliland oo maanta telefishinka sahan kula hadashay hoyga ay ka degantay magaalada Hargeysa ayaa waxay soo dhaweysay heshiiskii ay wada gaareen dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Itoobiya. Xalimo Xuseen Yuusuf ayaa sidoo kale waxay ka hadashay hadal ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka sida weyn uga soo horjeestay heshiiskaasi dhexmaray dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Itoobiya. Xalimo Xuseen Yuusuf ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xaaladda gobolka Sool waxaana ila hadashay oo ay fariin u dirtay garaadada gobolkaasi. Xalimo Xuseen Yuusuf oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaysa ayaa waxay tiri maanta waxay ila mid tahay maalintii Soomaaliland la qabsaday runtii sidii aan dareemayay farxadii aan dareemayay guushii aan dareemayay ayaan maanta dareemaya waxaynu gaadhnay guul siyaasadeed guushii ugu wanaagsanayd ugu qiimaha badnayd ee ummadi gaadho ayaan anigu aaminsanahay dadku waxa weeyaan share baynu ka helay Ethiopian Airlines oo ah diyaaradda company aad iyo aad u ballaaran oo hanti aad u badan soo saara اعتراف بينو هلاي أو وحي أي نصدق يصدق كسنادات سومالي إنه قال لا دي أي وبد كأنه كل رخيص صي إنه قص غير صي دون ده إنه جاكر ريبتي أي إنه نقول هيك سنة إنه أو دبر ديجني وسمرين ما تهلاي الحمد لله إلهي بمهاد له مالقش بينو هلاي وحوي بيا بدأ دي عبي ما إنه أنت مدرسات كسر ورنا عبي ما إنه بيا لما عبه وحوي مركا إلهي خيرات كانوا كلا كسيه وينات كفايدة ستو إن مدحوينا وان همبليين يا وحن ليه همبليو إن واحد قاعدي وقعد قوان ستي قوان كي وقف عنا ومدلو سمايو وانا كوجو همبليين يا بدنا وحوي دينا إنه كفايدة سنو أو إنه كرينو وواجب ولا كريه دد بالي ولا يبسدي وقيلنا يا وارقف دول كي سما يبسنكرو دول كي إن لما يبسنكرو مدحوينه مسؤول بي نجاي هي نجا دورني لكن إن نجا دل كله عيد يبسنكرته ciideen iyo badeena ma jirto laakiin baday la cabi mayna weynaynu ka faa'iideysano si ubadkeenu waxbarasho u helo si dhulkeenu maalgashi u helo saynu horumar dhaqaale u sameeyno ilaahay baa mahadle go'aankaas inuu madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay qaateen waanan hambalyeynaya in Soomaaliya saynu lisnayno ugu may hambayn inagu dawladda baynu tagnay 30 sanadood bay dhulkeena la simeen wayna laayeen dhaqaalihii bayna kaabayaasha dhaqaalihii naga burburiyeen markii aynu xurriyadii aynu geynay la soo noqonayna 3 ka sanadood dhibaatay inagu hayeen waa dad aad moodo in wax xumaantu buuxisay xaasidnimo hayso xiqdiha iyo in Soomaalidu waxay tiraahdaa dambas buu haraatay ninkii doqona baaltaartay waxaan u arkayaa dad yaanigii aan wax alaaliyo wax lagu la tashan kara aan lahayn dad aan wixii lala galay heshiis fulinin dad aan yaani dhulkoodii inta eegayaan bariis qof kale u karaya eegaya hadday eedo ka xanaaqaan iyo hadday ku farxaan midna wax isbedela de kuma sameyn karayaan go'aankan marka de badda anaga iskale badda Soomaaliland ba iskale shacabka Soomaaliland ba iskale go'aankana Soomaaliland ba iskale de meelaha hadday ka qaylqayliyaan de ha iska qaylqayliyaan eebun bay ka qaadayaan badda deyna lama waa baajuun iska qaylnaysan arkaya marka inay de xishoodaan oo in dalkan waa la ictiraafayo horu soconaya badda anaga iskale waxba kama bedeli karaan waxa hadaan waxba ka bedeli karaynin inaad ka xishooto oo ka aamusto xumaan kasto ku haysa ayaa ka faa'iido badan inaad qaylqayliso way waxba kama bedeli karayaan in arintu eedo in dawa arin cusub hadda uu baade arintu xalay uu bay soo baxday in arintan de gudoomiyahayaga oo aanu arkayo inuu yahay siyaasi xeel dheer siyaasiyiinta Soomaaliland ugu xeel dheer ayaa jawaabtaas bixin doona laakiin anigu shakhsi ahaantayda waa go'aan wanaagsan waan soo dhaweeyay waanan hambalyeynaya wadan inay arintaas soo dhaweysay waayo in dekada berbera markii DB wala la saxixanayay Cabdiraxmaan Cabdilaahi aad buu Silaanyo u cambaareeyay aad buu aflagaadeeyay aad buu uga soo horjeestay marka waan hambalyeynaya maanta haday arintaas soo dhaweeyeen waan hambalyeynaya in ibni aadanku fikirkiisa iyo aqoontiisu isku meel ma taag habeenkii inoo kordhaba rayba inoo kordha habeenkii inoo kordhaba waxba aynu arkaynaa waxbaynu diidaynaa waxbaynu yeelaynaa waxa laga yaabaa maalinta fikradda ku jirta maanta inaan ku jirin waxa laga yaabaa maalinta sidii wuxuu arkay inaanay maanta u arkayn
waxa laga yaabaa dee mise sana ka soo wareegay waxa ka soo wareegay dee muddo dheer marka waxa weeyaan dee siyaasadoodii bay furfureen adduunkay la qabsadeen oo dee caalamkay la qabsadeen maalintaana siday u fikirayeen maantana si ka duwan bay fikirayaan waan hambalyeynaya marka fidnicilku ma xalaal baa mise waa xaaraan iyo xuskiisaaba xun dani inaynu halkan ku xusnaba anigu raalli kama yihi waayo dee dowladaad dalalkii kulmay cid baa xukumayso madaxweyneyaal ka ahayd meesha qabaa'il laguma tegaynin waxa lagu tegayay mas-uulnimo iyo mas-uuliyiin baa tegayay marka dee waa ninkaale siyaasi baan haddana af soomaaliga ku hadlaya marka wax ka soo qaadna ima khusayso siyaasadaha ummadda kalena uma hanqaltaago anigu siyaasadda adduunka ee Soomaaliland baan hanqaltaagaa hataa ta Soomaaliya uma hanqaltaago marka wixii ka socday iyo hadday wanaagtay hadday xumaan tahayba iyaga khusaysaa ilaahay waxaan uga baryaynaa khayr ugu dhamaa waa dad muslim Soomaaliyeed garaadadii gobolka Sool maxaa u diraysaa wali xaaladii gobolka Sool waa la socotay maxaan garaadada gobolka Sool waxaan leeyahay dee bal go'aanka gaadheen ee ummad ku layseen ee dad ku dhibaatayseen ee dal istaahan ku burburiya ee ubadkiini iyo guryihiini ku barakicsan ubadkii ku layseen dee waxaynu eegaynaa bal sanadka iminka dhashay intaanu dhammaan midhaheedaynu eegaynaa midhaha Soomaaliland wala qosanay soo raac wallahi hadday doonaan soo raacineedo anigu iyay soo raacinba waayo laascaanood iyo buuhoodle waa laba degmo soo maaha buuhoodle dee dhul isaaqleeyahay baa ku jira oo waxa weeye xuduudda buuhoodle mara waxa weeye inaan 9 kiiloomitir ahayn bay buuhoodle ku leeyihiin dhulbahante marka hadday doonaan ee dahaba tagaantay waxa weeyaan mar haddaanay badigala tagin mar haddaanay erbodigala tagin mar haddaanay biyayigala tagin anigu haba tagaan baan leeyahay sii socdo ha soo noqonin reer sool daana anigu reer sool baan reer sool ha oran reer laascaanood sii tago ha soo noqonina waxaa naga sii qaadaan mooye waxba nagu soo celinay reer laascaanood waxaan leeyahay halkiina ilaahay idinku barwaaqay annaga halkiina ilaahay nagu barwaaqay sii socdo walaalayaal sii socdo tabaha sii gashada marka hore ogaaska waan xaal baan siinaya waxaan leeyahay adeer waan ku marinaynaa xaal marinaynaa adeer xaal qaada baan leenahay waa lagugu gafay maqaamka taagnayd laguma taagin lagama xishoonin laguma xurmaynin xaal baan adeer ku siinaynaa waxa weeyaan de markaad doonayso qof wuu xiga qofku ama isir buu kugu xiga oo abtirsiin baa ku raacisa ama asxaabnimo iyo wax isku darsi iyo isogolaansho isku raacdaan daaroode isirna nama raacino isir iskuma raacno wax wada isku darsi iyo isogolaashana iskuma hayno de waa kuwa dagaalka nagu jira isma xigno daarood isma xigi karno ehel ma nihin waxba isuma kaaya gelin hanti nagama dhaxayso araahi nagama dhaxayso fikir nagama dhaxeeyo dagaal iyo xabad baa naga dhaxaysa garan maayo sida uu daarood ii xigi karo anigoo dir ku abtirsanaya abtirsiintayda la garanayo Axmed Maxamed Xiniftiin Mahadira garan kari maayo sida ninka daarood ii xigo ninkii waliba dir ila sheeganaya Mahadir ila sheeganayo ii xigo ay garan kari maayo marka dadkuna haday inantu waxay tiri carab baaban galaaye bal carabtaan halkay dadka ka gelinaysa u soo sheegi doonta annagu carab ma gallo ciidan nahay waanu garanaynaa isirkayga waa la yaqaanaa halkaan ku aroorno waa la yaqaanaa marka qofkii daarood doonaya daarood halkuu joogo waa la garanaya laakiin anigu daarood xabadaasa naga dhaxaysa iyaga colaada qaatay naciibku iyagu ka yimi mar qofku nacibina ehel kuma noqon karo absolutely qofku dilaya oo dhiigaaga shubaya anigu garan kari maayo aqliyada tiliye ehel buu ku yahay waxa weeyaan dadku waxay ka xishoodaan kama xishoodaan dhaawaci bay dhaawac tirayaan qofka markaad qabato ee uu maxbuus ku yahay xaquuq gaar ah kugu leeyahay martidu xaquuq gaar ah kugu leedahay ehelka ay isdhashay xaquuq gaar ah kugu leeyahay saddexdaba way buriyeen oo saddexda xaquuqood way buriyeen daarood ehel ma nihin waxay suma nihin isma soo gallo xabad cas baa naga dhaxaysa ninkii na wanaajiyo waan wanaajin laakiin inta xumaanteeda ku fogan xabadaasaan u haynaa waxna isma nihin xamse jaamac xuseen xamse awowo sahan TV hargeysa